ashyaa badan oo kale la xaaraantinimay waa jiraan sida waxa weeye ninkii afar dumar qabay gabar shanaad inuu guursada uma banaana ilaa afartan mid meesha ka baxayso way nisaabkii baa ka buuxa marka mid shanaad uma banaana halka mas'alayn baraarujinayna waxay tahay dadka qaar kood waxay isticmaalaan sidaan maqlay isagoo afar dumar qaba ayuu mid furaya midaas inta ciidadii ku jirto mid kale guursanaya hadhowna mid kale u furaya tiibu soo cishanaya macaamil noocaas dadka qaar kood sameeyaan baa leeyahay taasi mid shariicada ku banaan ma mar hadduu nisaabku ruuxan ka buuxay oo afartii dumar ahaa ee u banaana afartuba ay joogeen inta waxa weeye taasi talaaqeedu rajci yahay ee ciidada ay ku jirto gabar shanaad ma guursan karo waayo gabadhan talaaqeedu rajciga yahay ciidada ku jirta waa fi xukmi zawja oo ribay la xukum tahay saasawada hadduu ninku dhinto intaas dhaxalka way soo taagaysaa dumarkii dhaxlayay oo marka zawjinimada ku dhaxlayay bay ka mid noqonaysaa hadda iyadu dhimato inta ay ciidada ku jirto talaaqa rajciga gudihiisana isaguna waa dhaxlaya marka ahkaamaha qaar kood waxay leedahay zawja ay leedahay marka inta gabadhaasi ay ciidada ku sugan tahay yaani mid xalaal u noqonaysa inuu gabar shanaad guursado maaha hadduu gabar qabay oo gabadha midaan lala kulmin karaynin uu doonayo inuu guursado yaduna saas si leeg weeyo inta ciidada ku jirto talaaqeeduna rajci yahay gabadha kale ma guursanayo waa fi macna al-jam'i inuu kulmiyay ka dhiganta waa tan luqsi laga dhigo la yiraahdo dumarku inay ciido leeyihiin la garay raggu ciido ma yeeshaan taa suwar bay ciido yeeshaan waa cadad baxal sugayaan ila ciidadu waxba kaga xidhan xaaladka caynkaas oo kala illa cadad baxaasi dhaco ciidii aanu la kulmin karin ma guursan karo waxay ka dhigantay inuu kulmiyay gabadha shanaadna ma guursan karo illa intay cadad baxayso ciidu ku jiraan وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافحين وحي انتا كسو هري ولا يدين حلاليه إنا حوليهنا كدونتان وحلوت شيدا دي حولي با لغو غورسنيا haday tahay meherkii iyo masruufkii mid walba idinkoo dad guursanaya oo aan ka zinaysanin halka ku joogo wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk